kulan wanaagsan saaxiibayaal halkan waa telefishinka M24 magacaygu waa Maxamed Cabdi Xasan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta toddobaadka oo maanta marti uu noogu yahay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale tan caalamka si gaar ah maanta waxaan uga wareysan doonaa ama diiradda ku saari doonaa barnaamijkayga maqaamka Muqdisho sida hadda uu soconayo iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya dhowr jeer ay sheegtay in gobolkan uu muhiim yahay in laga hirgeliyo in maamul goboleed ama maqaam isaga gaar uu leeyahay laga dhiso. Doctor waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkan falanqaynta toddobaadka. Su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxa ay tahay maqaam inuu yeesho Muqdisho maxay ka dhigan tahay? Maalmahan waxaa la hadalhayay Muqdisho inay yeelato maqaam iyo maamul inay yeelato. Waxaa keenay in ay tahay magaalo dayacan oo aan lahayn dad u istaaga haddii yihiin oday dhaqameedyo, culamaa u diin, aqoon-yahano, siyaasiyiin iyo ganacsato. oo macnaha waxay u eg tahay magaalada Muqdisho oo la rabay dowladnimadu inay ayada ka bilaabato oo ka hana qaado ayaa waxaa dhacday nasiib daro inaanay joogin dad xilkaas iyo mas'uuliyaddaas isu xil saara oo ka shaqeeya. dadka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan qof matasha miiskan ma fadhin. sababta waxaa caddaynaya inayna markii waxaan la qoraayo qof dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho degan inayna fadhin waxaa caddaynaya haddii meeshaas qof fadhiya uu jiri lahaa waxaa imaan lahayd okay magaala madaxda maqaamkeeda waxaa go'aan ka gaaraya guddiga dib ogista ka gaaraya. haddana waxaa sharci gaara ka soo saari doona labada aqal intii ka horeysa yaa mas-uul ka ah dadka xuquuqdooda siyaasiga iyada oo weli aan ku dhammaystiro isla dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 22aad xaqa ka qaybgalka siyaasadda wuxuu leeyahay muwaadin kasta oo buuxiyo shuruudaha sharcigu tilmaamayo wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna doorto. marka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho yaa xuquuqdoodii siyaasadeed mas'uul ka ah maadaama inta waaba aqbalna waxaan aqbalnay in maqaamka magaalada Muqdisho go'aan looga gaari doono dib u eegista dastuurka. waxaan aqbalnay in labada aqal go'aan ka soo saari doonaan inta ay ka soo saarayaan ilaa waxaa la qoray 2008 2009 la qoray 2010 la qoray inta la gaarayo haddana waqti la gaari doono lama oga inta la gaarayo dadkan xuquuqdooda siyaasiga ayaa mas'uulka ah. arrinkaas macnaha meesha dhibaatada meesha ku jirna waxna waa technicality waxna waa idea of the state waa idea of the mataqaana political power. marka dadkan oo qodobkan sidaan u soo qoreen annagoo tixgelinayna laakiin waxaa ka maqan haddii ayna joogin oo ina miiska aysan fadhin xubno matalaya dadka degan magaalada Muqdisho markaas haddayna miiska fadhin oo walaalo kale oo Soomaaliyeed ay fadhiyeen waxaa ka maqan qodobkan dareenkii Soomaalinimada iyo in dadka Soomaaliyeed dantooda si siman oo dhammaystiran loogu qoro dastuurkay ahayd. Doctor haddaan ku weydiiyo Muqdisho waa la wada degan yahay canshuurta waa la bixiyaa yaad ula jeedaa dadka Muqdisho degan? anigu dadka dega waxaan ula jeedaa qof kasta oo Soomaali ah oo magaalada Muqdisho kule guri canshuur laga qaado ama ijaar ugu jira guri canshuur laga qaado. magaalada Muqdisho waxaan doonayaa ama aan rabaa dadka Soomaaliyeed dhammaantood inay si siman ugu noolaadaan laakiin waa inay cadaalad ugu noolaadaan. magaalada Muqdisho go'aankeeda oo iyo maamulkeedana waa inay yeeshaan
dadka degan oo canshuurta bixiya. magaalada muqdisho goof ma aha, waa dhul cabiran. muqdisho waxaa degan oo xuquuq siyaasadeed ku leh qofki degan oo gurigiisa ama dhulkiisa canshuur laga dhiibo, sida guriga abootada oo kale. siyaasiyiin badan oo dalka meelaha ugu sareeya ka soo qabtay iyo kuwa kale ayaa jooga, aqoon-yahano, odayaal dhaqan. maxay tahay dadka muqdisho degan sababta maqaam iyaga u gaara ay u dhisan laayihiin? maye magaalada muqdisho ma laha siyaasiyiin iyo aqoon-yahano iyo ganacsato iyo dhaqan u taagan inay ka shaqeeyaan maslaxadda dadka iyo deegaanka sida ay u leeyihiin deegaanada Soomaaliyeed ee waqooyi bari ee Soomaaliya. waxaan u jeedaa Puntland sida ay u leeyihiin waqooyi galbeed ee Soomaaliya, Somaliland. halkan ma joogaan dad saasa ama yani dareenkaas le ma joogaan. waxaana ku cadaynaya inaysan joogin. marar fara badanna waxaan rajeynaa idaacadaha waa ka dhageysatay, wax qarsoon maaha. madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole, madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli, madaxweynaha hadda jooga Saciid Cabdullaahi Deni, iyo waxgarad badan oo Puntland jooga si toos waxay u yiraahdeen Puntland waxaa loo dhisay inay isdhisto, Soomaaliyana dhisto. su'aal aaway dadka degan magaaladan dadka soo baxa maxaa loo waaye oo maamul dowladeed sameeya oo lagu kala dambeeyo oo yiraahda maamulkan waxaan u dhisaynaa inaan isku dhisno, Soomaaliyana dhisno. maxaa loo waaye dowladnimo markaan ka hadlaynana dastuurku is a social contract. waa heshiiska dadweynaha oo Biden ku ah qof kasta oo Soomaali. dastuur waxaa loo jeedaa hadda ka hor dadka Soomaalida waa u sheegay, haddana waa uga celinaa. afkeena ma aha, afka carabigan ka soo qaadanay. carabta waxay ka soo qaateen Turkida, Turkidu waxay ka soo qaateen Farisiga ama Iiraaniyiinta. waa das iyo tuur, waa buuggii qawaaniinta. dastuurkan markii la qoraayay hore waa u sheegay, haddana waa ku celiyaa. dadkii qoray oo soo abaabulay waa ku mahadsan yihiin. laakiin dastuurka marka la qoraayo meelo badan, qodobo badan oo dastuurka ka mida Soomaalinimadu waa ka maqan tahay. Soomaalinimadu waxaan u jeedaa haddii ay jiraan wax anigii adiga naga dhexeeya, laakiin adigu aad maqan tahay ee aniga aan markaas miiska fadhiyo, waa inaan ilaaliyo maslaxadaada. qodobka 142 dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran iska caadi ah ku qoran inta dastuurka Jubbaland, dastuurka Koonfur Galbeed, dastuurka Hirshabeelle, dastuurka Galmudug inta laga samaynayo oo laga saxayo oo dastuurkan Soomaaliya laga waafajinayo inta ka horeysa Puntland waxay haysanaysaa awoodda uu siinayo dastuurkooda. markii Puntland dastuurka waxay ku darsatay in dastuurkeedu oo dastuurka Soomaaliya waayaa inay isticmaali karaan ilaa iyo dastuurka Soomaaliya laga saxayo oo labada oo intaasoo dasaatiir la iswaafajinayo inta ka horeysa inay dastuurkooda isticmaali karaan ku qorteen. marka waxay tahay haddii la dhahay maqaamka Muqdisho waxaa looga hadlaa dastuurka looga hadlaa dastuurkana cid dib ogaysa aysan jirin ama labada gole oo Soomaali ka dhaxeeya go'aan ka gaara marka la yiri dadka degan maxaa loogu talagalay ii sheeg. laakiin doctor soo ma ahayn marka maqaam dad dhan laga hadlayo in dastuurka uu ku matalo dad iyagu halkaas u jooga oo la socda waxa soconaya iyo sida iyagu ay u rabaan in wax loo qoro ama loo maamulo intaba. dastuurkanu dowladnimada ka hor waaye. okay mid kale haday timaado haddana waxaa timaadaba kaba soo qaad dastuurku inta kuma cadaynaya. haddana xataa ma dhihin dadka Muqdisho jooga, shacbiga Muqdisho jooga oo aan tashanayn dowladda dhaxa u talay xataa kuma qora
oo hadda hadday ku qoraan lahayd, hadday ku dari lahaayeen ama ay dhihi lahaayeen magaalo madaxda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa Muqdisho. Kow, maqaamka magaalo madaxda federaalka waxaa go'aan looga gaari doonaa dib u eegista dastuurka. Labo, waxaa sharci gaara ka soo saari doona labada aqal ee federaalka baarlamaanka. Saddex, intaas hadday ku dari lahaayeen. Afar, intaan laga samaynayo waxaa mas'uul ka ah maadaama ayna tasha karin ayagu oo ina wax qabsanay oo ina lahayn dad wax garta oo Soomaaliya la sinma maadaama aysan lahayn dowladda federaalka ha mas'uulka xataa inta kuma qorra xataa toddobaadkan kalfadhigii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya markii uu furmayay gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in la dhaqan geliyo dastuurka qabyada la dhameystiro isla markaana maqaam uu yeesho gobolka Banaadir. Arrinkaasi maxay ka dhigan tahay ama idin la muuqata aqoon-yahan ahaan? waxaan rabaa inaan u mahadnaqo gudoomiye Cabdi Xaashi oo dhowr mar soo jeediyay, laakiin mudane gudoomiye Cabdi Xaashi waa ka maqan tahay anoo ixtiraamay waxay uga maqan tahay sac Soomaali citra sac ninkiisii dabada uga fadhiyo ma kacay. Cabdi Xaashi hadduu soo qaado arrinkan wuxuu geyn karaa asaga oo shaqadooda ay tahay in labada aqal soo saaraan sharci gaara. labada aqal in loo geeyo kama horeyso ilaa waxaa ka horeeya mugta marka hore in dib u eegista dastuurka looga hadlo. dib u eegista dastuurka cid ka hadlay ma aragta, cid u socota ma aragta. haddii se la sameeyo 5 nin waxaa magacaawda dowladda dhexe magacaawda waxaana lagu qaybinaa 4.5. 5 nin waxaa soo magacaabaya 5 maamul goboleed. ma waxaa ku jira dadka Muqdisho cid mas'uulka ku jirta? marba haddii go'aanka maqaamka Muqdisho ay gaarayaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya talada ama gacanta dadka gobolkan degan waa ay ka baxaysaa awood inay u yeeshaan in maamulka ay dhistaan. sidaas ma la dhihi karaa? maya markaas waxaaba maqanba qodobkan kaleeto oo waxaa inta maqan oo ii sheeg awoodda shacabka. awoodda shacabka wuxuu leeyahay awoodda isxukunku waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa shacabka. shacabka aawe meesha Muqdisho meel eber miyaad miiskan dushiisa eber miyaad intoo kale miyaa yaa degan shacbiga deganay aawe. shacbiga degan dastuurka wuxuu leeyahay awoodda waxay ka bilaabataa shacabka waxayna ku dhammaataa shacabka. marka shacbigii marka shacab marka la yiraahdo marka of course shacbigu waa islaanta nyaanyada gada, wiilka bajaajka wada, midka hilibka iibiya, midka caanaha gada, midka dhuxusha keena, midka dhagaxa keena, midka bakhaar kale, midka bangiga leh, ka xawilaada leh, ardaga macalinka shacbi ah. laakiin sida caadiga ah shacbigu dhammaantiis wax ma qabto, dad ayaa shacbiga matala. marka shacbiga inta ay elected ay ka noqonayaan oo ay ka dooranayaan ahlu xalli wal caqd wax garadkay dhaan marka ama elite ama waxay dhaan political class oo ah kuwa sameeyay Somaliland iyo kuwa sameeyay Puntland sameeyay. maalintay kuwa sameeyay Puntland meel fadhiisanayeen oday dhaqameed caadi ah, siyaasi caadi ah, sargaalan ciidan xukumanay ahaayeen. intay isku yimaadeen yaa garashadooda iyo kartidooda iyo raganimadooda waxay tustay inay sameeyaan maamul dawladeed. waa gartay doctore sidee dadkan gobolkan Banaadir ee degan maqaamkooda ama masiirkooda ay uga tashan karaan? laba bay mid noqon kartaa inay hurdada ka kacaan oo yiraahdaan war waa nagala tegay ee dadkii naga tegay aan ka daba tagno oo ay bini aadmi noqdaan oo ay ka koraan inay u shaqeeyaan dhuuntooda iyo calooshooda oo ay yeeshtaan wacyi siyaasiya oo ay ogaadaan maamul dawladeed haddii la sameeyo inay heli doonaan waxaan yaryarka ah oo weliba hadda lagu caayo oo albaabadii hortaagan yihiin sida bisaday meelaha nyaaw ka leeyihiin. shan ku hala siiyay laba kun qaar bac loogu shid laba kun envelope ko loo gadana waa la sheegay anigu ma arag oo meelaha nyaaw xafiisada ka hor leh. ileen sababtu waxay tahay adigu Soomaali citra doqontiisa xataa sicay dib u dhalaa inay ka kacaan oo is weydiiyaan dhaan wariyaa 30 sano falaado hayna ma joojinaa oo bini aadmi ma noqonaa sida dadka kale bini aadmi u noqday iyo
haddayna kari karin marka diyaar waaye puntlandna waxay kuula taagan tahay waxaan u taagannahay inaan isdhisno soomaaliyana dhisno. laakiin doctor waxaa jira su-aal aada la isku weydiinayo oo ah gobolkan banaadir haddii uu yeesho matalaad ama maqaam waxaan la soconnaa dowladda dhexe in halkan degan tahay madaxweyne halkan uu joogo xageey wajihi doonaan madaxda ugu sarreysa dalka maadaama halkan caasimadii ay tahay. waxaa si khudba sir ah marka ku haysta marka ninkii yimaada villa soomaaliya su-aal waxay tahay intuu aadaa haddii la dhaho xamar dadka jooga isxukumaya intuu aadaa waa cirka jarjara saaraa maano waa ogeed wixii meeshaan isbaarana loo dhigtay iyo rafaadkii nagula dhigay iyo ilmihii inay iskuulka aadi waayeen oo wasaaraddan arrimaha dibadda horteeda gabar Soomaali ku foolatay iyadoo isbitaalkaasi loo diiday oo meydkii dhagxaanta laga gudbay waa ogeedoo la rafaadinaya dadkan waxaa la raadiyo dad la rafaadiya la isugu haya oo canshuurtii saddex canshuur dadka laga qaado haya sababtu waxay tahay kuwa dhahaya dhaqanaan nahay iyo siyaasiyiinaan nahay iyo xataa aqoonyahan ku dar wax ay galaan iyo wax ay gooyaan mala gebigooda ma dawlad ma fahamsanaba. qaybihii dambe ee barnaamijka iyaga ayaan isla soo gaarnay doctore siday suuragal ku noqon kartaa in dadka muqdisho aayahooda si madax bannaan ay uga tashtaan isla markaana ay dhistaan dowlad ama maqaam iyaga u gaara? horta marka hore dadka jooga magaalada waxba tiri mayso inaan garaaco mayd lama garaaco hadda ka hor waxaan dhaha odaduub weyn calool weyn qamiis weyn kulli waa sheegnay way qabtaan oo ganacsatada waxay dhahaan sheekhow maxaa doctor maxaa caloosheen u sheegta kuwa kale odayaasha dhaqanka waxay dhahaan duubkeen maxaad ka rabtaan iyo waa isaga qaraabanaa wadaadadii waxay dhahaan niyow adigaba waa naga tirsantahay maxaad noo daba taaganta si kastaba ahaato ninoo lagama quusto warhee dhahay haddii adigu qofka oo mukhtarica ah oo fikirka iyo hal abuurka leh ingiliishka waxaa lagu dhahaa pioneer carabigana waxaa lagu dhahaa mukhtaric qof wax cusub ibtikaara qof inuu wax fikir abuuro curiyo ma karo laakiin wuxuu karaa fikirkii la curiyo inuu fahmo caqli saliima dowladnimo diin wax qaba inay saas dad musaalimiin ah oo shacbi ah in sidaas loo ihaanaysto meel ay ka jirta ma jirto ilaa barbarid maahane macna intaas in ka badan si aan u sheega maaqaane waxaan dhahaa allahuma hadi qowmi fa inahum laa yaclamuuna ugu darima bis waxaan la keliya allahuma hadi qowmi iyo walacala allaha yukhriju min aslaabihim man yafqahu qowli hada waxaan rajo ka qabaa kuwaan hadda wax ma gartaane walba inay dhali doonaan kuwa mustaqbalka wax garto waxaan sheegay fahmi kara cajalkaana ha loo kaydiyo. aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor xasan sheekh cali nuur oo nala falanqeynayay maqaamka muqdisho iyo sida hadda laga yeelayo. barnaamijkan kan xiga intaanu ku kulmayno dhammaanteen isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.